السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tutorial كنا كوبان إن شاء الله waxaan ku baran doonaa effect loo yaqaano pop out effect lagu isticmaalo marka Adobe Photoshop. Haddii aan guda galo halkan waxaa yaala qaybta layerska hal sawir magaciisa waxaan bixin doonaa marka si aan kula fahanno image 1 way halkan soo kale waxaa yaala wax loo yaqaano shape wali wax weeyaan ellipse kalarkiisana waa nooca way wax sameynaya sawirkan aan bixiyay image 1 ayaa mar labaad ku biisanaya ama duplicate sameynaya dushiisa leeyahay right click kadibna halkan ay qoran tahay duplicate layer baa ku dhufanaya waxay sameynaya marka mid labaad magaca waxaan bixinayaa kan image 2 si markaan kala fahmo labadooda way okay balay inta marka sameeyo image 1 kii baan waxaan oranayaa dushiisa right click kadibna create clear mask waxaan dhex gelinayaa mina shape sug haddii aad doonayso course-kan oo faahfaahsan waxaad u heli karaysaa qaab online adigoo ku dhiganaya website-kayga tixi.com sidoo kale waxaad ku heli karaysaa qaab offline oo haddii aad Hargeysa joogto aad noogu iman karto classes-ka aad halka ku dhiganayso ka faa'iideyso inagu celiyo muuqaalka waxaan ka imanaya marka kan waxaan u imanaya marka ka labaad select gare ama dooro click baan siinaya anoo click saaraya ama selection ama highlight kolba keyboard waxaan qabanaya control waxaan click siinaya meesha loo yaqaano layer thumbnail waliba shape click markaas iyo select wuu sameynaya waxaan u dooran sad aragtaan hooyeen image 2 halkan soo imanaya waxaan taabanaya wax loo yaqaano add a layer mask click baan siinaya waxay sameynaya marka hooyeen mask inta kadib waxaan soo qaadanaya soo dooraya maskigu brush tool waa kan right click xagu sareeyo weeyaan xoogay baan baahan weynayo keyboard ka isticmaal kara wax loo yaqaano close button bracket marka xoogay iyo weyne intaas sare madaxa waxaan sameynaya marka masaxaya oo soo minaato muujinaya intaan oo sadan masaxo iyaguna soo muuqanaysa laakiin u baahni kaliya waxaan baahnay intaas sare saarafo wax weeyaan ku sameynay waxa loo yaqaano pop out effect-ga waxaan isticmaalaa marka weeyaan sawir ila background wax weeyaan marka hore weeyaan sameysaa background ka saartaa kadibna aad la timaada weeyaan taas ku leeyahay waana wax weeyaan tutorial kooban saasi khayr badan insha Allah.